الله عليهما قصدني وقصدي أفراد وحا عنوان إيها الكدقوا قبضا أو كلا هي قصة الأحياء ده أيات كدنا دانسان دونتا كان عارفين دونتا كان فهمي دونتا كنا راحيسان دونتا وتشدد قصدنا أتكالصوا لحبيح دونتا دروس الدونك كو أنفعضه بإذن الله آخرنا كو أنفعضه قصة وحي كو ساسونتهاي سحابي كمذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أحمر تأسجة إيا النبي صلى الله عليه وسلم إيا الرير وقبر كدونتي إيا وقلاده مركه هوري إنا الصحابي مجعيس إذين شيغو جليبيب وحنفير إياه دادك طلبة العلم انت بدوية قانان جليبيب إلهي با حكمتي سبحانه وتعالى قفصبوا أبورك إلهي أردنا وقرح لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لكن سحابيني إلهي وحقوق أبوري سبحانه وتعالى قاب أي بني آدمكو أي أهان ولقى قرح بدن يهي هبل مال مالمها كمذا وحو نبقى أركي أسوه مروغيسا نبقى أيو أيمت أما نبقى أيمت صلى الله عليه وسلم أسوه مروغيسا بون أركي رسولك إلهيو وحان قري شهادة أن لا إله إلا الله وحان كرون قري وأنك رسول الله أنيقى الرسول إله إنا تهيبان قري أنيقى قابك إلهي إيسميي فول حما يعني قابك أنيقى إلهي إيسميي ساسو أسوي اسكولهي يعني قروح بضنين قابك أنيقى إلهي إيسميي ما إيدي ليسا إنا الجنة قاله سؤال عجائب فضل نبي وحيري مايا صلى الله عليه وسلم سحابي وحيري هدبا maxay dadku iigu diidaan gabdhahooda hadaba inaan guursado axad ii guurina yalla ma arko qof kastoon albaabka ku garaaco rasuulka ilaahayow gabadhiisu waa ii diidaya halka markay arrintu marayso nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri orado u tag qoyskaas reer hebel la yiraahdo hebel iyo hebel isqaba u tago waxaad ku dhaadaa gabadhiinaan idinka doonaya gabadhiina ayaan idinka rabaa ku dheh nabigaana isoo diray sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadibna saxaabigii waa soo baxay qoyskiiba u yimid wuxuu yiri gabadhiina idinka doonayaayoo nabiga isoo diray ninkuu ku hormaray oo ninkiiba wuxuu yiri marhaban bik wuxuu u qaatay qofka raba gabadha inuu nabiga yahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu arkay ogaaday oo dareemay inuu u qaatay cidda gabadha rabta inay nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam julaybibna la soo dirsaday ka rasuul ahaan ayuu yiri maya u kaadi cidda gabadha rabta nabiga ma aha sallallahu alayhi wasallam hee cidda gabadha rabta waa aniga loo raba gabadha ma adigoo julaybiba anigoo julaybiba wuxuu yiri bal hada isug aan hooyadeed la soo tashade kadibna hooyadeed buu u tagay qisa cajiib ah waay waaqicayna Soomaaliyaana qayb badan ka waafaqsan wuxuu u tagay xaaskii buu u tagay odaygii baa u tagaya wuxuu ku yiri nabiga naga soo doontay sallallahu alayhi wasallam gabadheeni gabadhi inta way maqlaysaa sheekada gurigay ku jirtaa waxay tiri marhaban bihi ma nabigeena gabadheena raba waan soo dhaweynaynaa markaasuu aabihiina yiri cidda gabadha rabta nabiga ma aha sallallahu alayhi wasallam waa julaybib kadibna riwaayooyin kale ma cid kale waayay iyo kada iyo ala kulli xaal arrintaasi way ka gows qabsadeen labadaas markii arrimaha la isdhaafsaday gabadhi waa maqlaysay gabadhi way maqlaysay gabadhi baa qolka ay ku jirtay bay ka soo booday markaas waxay tiri maxaa jiro oo say wax u jiraan waxa la yiri sida iyo saasay wax u dhaceen waxay tiri ma nabi muhammad qofku ii dooray
miyaad idinku hor istaagaysaan waxay dareemaysaa nebi maxamed qofku u dooray inuu yahay qof khayr badan ayay dareemaysaa markaasaa waxay aqriday wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara culamada qaar baaba yidhi saasay kusoo degtay laakiin aayaddu gabadhu saasay akhriday julaybiib calaa kulli xaal gabadhii waa la siiyey mar hadday gabadhii noocaa ay timid ay tiri gabadhii waa la siiyey nabigu waa ku farxay sala allahu caleyh wasalam julaybiibna waa u duceeyey maxaa yeelay kaana faqiiran wa damiiman nin lagana qurux badan yahay haddana aan waxba haysanin oo cid gabadhiisa u guurinaysa aynan jirin buu ahaa bal qisadaa ila dhegaysa ayuha alaxiba uxibukum fillaah maanta gabdhaha waxaan iskugu diidnaa wuu foolxu yahay waxaanu iskugu diidnaa xoolo ma haysto waxaan iskugu diidnaa waa reer hebel ba ugu daran reer hebel ayaa ugu daran iyo tabaqaadka dadku inay iskala sarraysiiyaan qisada marka waa qiso cajiib oo yaa badane waxaan rabaa inaan ku soo aruuriyo oon ku soo gebagabeeyo julaybiib oo diyaarsan gabadha inuu dhistana doonaya suuqa jooga oo wax gadanaya ayaa wuxuu maqlay yaa khaylaallaahi irkabi jihaadkii uxud ayaa la iclaamiyey in la aado kadibna wuxuu is yidhi war ma jihaadkaad aaddaa mise gabadhaad dhisataa nabiguna sala allahu alay wasalam wuu ogaa hadduu si cad u soo istaago inuusan oggolaanaynin oo nabigu horay wuxuu yidhi ninka guri uu qabyo ka yahay oo saqafki saaranaya iyo qofkay gabadhi u doonan tahay midna yuusanna raacin wuu isqariyo wuu isduuduubay dagaalkiibuu dhinac ka galay markuu dagaalkii uxud dhammaaday ayaa la yidhi yuu nabigu sal ly slam yaa maqan yaa dhintay yaa la dilay hebel iyo hebel iyo hebel bal ku laabta hebel iyo hebel iyo hebel anu nin baan tabayaa ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam anigu nin baan tabayaa war bal ninkan bal cidda aad magaceeda sheegteen may cid kale ma garanaysaan maya haddaba anu nin baan tabayaa waa maxay julaybiiban ninka julaybiib la yidhaahda ayaan tabayaa kadibna waa la raadiyey waxay soo heleen asagoo dagaal adag galay 7 nin oo gaaladii la dagaalamaysay quraysheed ahay dilay kadibna ay dileen nabigu sala allahu calayhi wasalam intuu istaagayba wuxuu yidhi qatala 7 huma qataluuh haadaa minii wa ana minhu 7 dilay kadibna way dileen kani julaybiib anigu iga mid yahay aniguna asaga ayaan ka mid ah kadibna nabigu sal ly salam asaga ayaa gacmihiisa shariifadee qiimaha badan ayuu nabigu ku qaaday sala allahu calayhi waali wasalam ilaa la geliyey laxdigii iyo qabrigii la geliyey ayuha alaxibatu fi llah uxibukum fi llah qisadaa maxaad ka fahamteen arju inuu qof walba qisadaasi macaanida ay xumbaarsan tahay inuu dhuuxo intaanu kaga kulmayno xalaqada 5aad waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah wa uxibukum fi llah wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.